بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام حديث كاسوحة وكنت المامية حمه هدو كاردعو وانا كدبك وترتر اياي إنسان كسيدي السبب وإنسان straight line وما صعده qofka bini aadamka noloshiisu inta badan waa zigzag kor iyo hoos buu socdaa waxa waajib laynagaga dhigay furuudul caynka inaynu ilaalino marka meel ka sarreysa inaynu istaagno si zigzageenu markuu dhaco aynan u hoos weydaaranin sunan tiro badan baa laynoo jideeyay marka waxa laynaga mamnuucay waxyaabo mamnuucaat ah iyana waxa lagu xeeray waxyaabo makruuhaat si aanad kuwa hoose u gaadhin si bini aadam baa tahay haddii qaladba kaa dhaco ilaah ghafuurun raxiima baa jira waxaa layna faray markaa inaynu wanaag ka dabageyno sayi'a kastoo inaga dhacda wanaaggaas baa tirtiraya waxay dhahdaan culammadu dihaabu sayi'aat aw idhaabu sayi'aat laba qaab bay u dhacdaa midi waxa weeyaan inaad marka horeba ku dhicin waxyaabaha keena waxaa ka mid a xasanado aad badsato oo ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka markuu salaada tilmaamayo ina salaata tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar baa layidhi waxay kaa reebaysaa inaad fuxshi iyo munkar ku dhacdo yacni sayi-aday ka hortegaysaa intaanay dhicinba waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamaya dhaqanno bini aadamku uu leeyay oo cidda qura ka badbaadaa ay tahay musalliinta iyo sifaadka la socda kuwa ilaahay ku sheegay ina alinsaana khuliqa haluuca idaa masahu sharu jazuuca wa idaa masahu alkhayru manuuca bini aadamku baa la yidhi sifada haluuca la yidhaahduu leeyahy oo ah khayrku markuu helana waa mid ku dhego aan sii daynin oo waxba bixinin dhibtu markay qabsatana waa mid catow iyo calaacal badan marka labada dhandhanna kuma fiicna keebaa ka badbaada xumahaasi ila almusalliin baa ilaahay yidhi dabeetana sifaad baa ilaahay soo taxay xagga dambena waxa lagu gebagabeeyey kuwa salaadooda xifdiya idan salaadu dhaqan xumadaasay marka horeba kaa ilaalinaysaa waxay dhahdaan cahdigii nebiga saxaabada nin baa la sheegay salaadda habeenkii uu kici jiray salaatuleyl laakiin weli haddana gacantiisu wax yaro qaadqaadi jirtay markaasay ka warrameen oo waxay dhaheen ninkani habeenkiina waa tukadaa waxna waa yaro qaadqaadaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina salaatahu satanhaah sidaa aa sheegaysaan hadday jirto salaaddiisaa ka reebaysa waxay leedahay markaa xasanadu marka koowaad hadday xasanaadkaagu fiican yihiin sayi-aadka way kaa ilaalinayaan haddiiba ay kaa dhacdana sayi oo dhan xasanaad tirtirta laakiin xasanadu waxay ku xidhantahay sayi-adu nooca ay tahy oo maalan xasanatu tawxiid dee waxay tirtirtaa shirki iyo wixii ka hooseeyey oo dhan markuu qofku tawxiidsado gaalnimadiisi iyo wixii ka horreeyey oo dhan buu ka baxaa xasanatu tawba waxay tirtirtaa kabaa'iru dunuub ina alislaama yahda maa qablah wa ina alhijrata tahda maa qablaha ina alxaja yahda maa qablah ayuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan xasanaadka noocaasi ee hadday tahay atawxiid ama hadday tahay xasanatu tawba waxay tirtiraan sayi-ada dhammaanteed oo dhan xasanaadka intaa ka hooseeya haddaad kabaa'irta ka durugto ida ijtunibat ilkabaa'ir acmaasha caadiga aynu samaynayna baa sayi-aadka yaryar oo dhanna tirtira siday culammadu tilmaamaan oo waa kii nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam salaad ilaa salaadi waa mukafiraatun limaa baynahun inta udhaxaysay tirtirtaa jumco ilaa jumce inta udhaxaysay tirtirtaa soon ilaa soon
inta u dhaxaysay tirtirtaa ida ijtunibat alkabaa'ir buu nebigu yidhi haddii kabaa'irta laga durko waayo waxay culammadu inta badan yidhaahdaan kabaa'irtu toobad bay u baahantahy waxaa laga yaabaa inaad su-aala isweydiiso oo salaad ilaa salaad hadday tirtirtay oo salaad waliba intii ka horraysay tirtirtay jimcuhu usbuuca muxuu tirtiri markaa maxaa soo hadhay oo haddii la yidhahdo jimce ilaa jimcuu tirtiraya muxuu tirtiri doontaa ramadaantu waxaan leenahay acmaashaynu samaynaa kullahaa ma wada xoog badna ama maqbuul ma wada ahaba matala nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa salaadaynu tukanayno mid baa salaadiisa tusucuha la aqbalaa humuunaha subuucaha sudusuha khumusaha ayuu nebigu soo waday idan safka waa ku wada jirnaa salaaddii maqrib laakiin waa iskaba yartay 100% laga aqbalay waxaa laga yaabaa 10% 12% dee 12% markaa dembigaad maantao dhan daldalaysay ma wada tirtiri karto in shaa allahu ta dambaa inteedii lagugu kordhinaya marka waxoogaagaa jaabajaabe aad la timi marka la ysku dardaro waxbay nadiifin haddii wax ka soo hadhaan jimcihii baa nadiifin haddii weli wax ka soo hadhaan oo aan weli waxa waanay sayi-aadkaaguna dee iska tiro badan yihiin waayo dhegtiyo afkoo qura haddaynu eegno waagu markuu bariyo ilaa iyo intaad ka seexanayso waxay u badan tahay inaad ama hadlayso ama mid hadlaya aad dhegaysanayso inteebaa khayr aad u malaynaysaa marka waagu saaka markuu kuu bariyo aad soo kacday ilaa iyo caawa intaad ka seexanayso ama adaa hadlayey ama mid hadlayaad dhegaysanaysay ama tv dhe ama whatsapp dhe ama waxa doonta dhe inteebaa xasana ase inteebaa sayi-a baad u malaynaysaa sayi-aadku markaa waxba ha yaryaraysanayso dhan adigu wadaad baa taho wallaahi shantiina waa tukataa meelahana waad iska fiicantahay maantaba waa daldalmaysa waxaad sheegaysayna khayrku kuma badnayn idan waxaynu u baahan nahay inaynu caqli soo jeeda yeelanno ku dadaallo inaynu sayi-aadkeennu waa tiro badan yihiine inaynu xasanaad tiro badan ka dabageyno ilaahayna waa ka tilmaamaya ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixa fa ulaa'ika yubadilu allaahu sayi'aatihim xasanaat kuwii toobad keenay ee iimaan laga helay ee camal wanaagsan sameeyey kuwaa ilaahay wuxuu leeyahy sayi-adoodii hore ay qabla alislaam samaynayeen ilaahay wuxuu ugu beddelayaa xasanaat haddaba qofnaba kama maarmo toobad nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa tilmaamaya axaadiista saxiixa ah aktar min 70 mara aw 100 mara inuu toobad keeno isagoo macsuumoo ilaahay doortay isagoo ilaahay rasuulkiisiiya famaa baaluk dadkeenna ka hooseeya maxaad u malaynaysaa marar badan cibaadadeennaa u baahan in laga istakfirlaysto oo aanu cuntamin wax ilaahay lala hortagaba inay noqoto inay dembi kaa rogto daayeen walidaalika baa in badan waxaad arkaysaa nusuusta istikfaartu cibaadaadka dabadood bay soo aroorta salaadda markaynu tukanno markaad salaama naqsataa lagu yidhi waxa ugu horreeya aad tidhaahda ha noqdo maxay astaqfirullah 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 cibaadadaad samaysay maxaad ka istakfirulaysanaysaa yacni waxaad garanaysaa wax rabbi lala waajaha inaanay ahayn intii yaraydaad imika samaysay dabeetana waa jabraanu naqs wixii gaabnidaadii baad rabtaa inaad ku dhammaystirto marka walaaladaan wakhtiga u soo koobayaa iyo waxaan ku gebagabaynayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam saasuu inoo tilmaamay wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha sayi-aadkaa tirada badan le aynu samaynayno xasanaad inaynu ka dabageyno wardi ha noqoto qur-aan la akhriya ha noqoto dacwo la sheega ha noqoto salaad la tukada ha noqoto dikri kaloo lala yimaado ha noqoto khayr inaynu ka dabageyno ilaahayna wuxuu inoogu tilmaamaya aayadku sheekuu akhrinayay ina alxasanaati yudhibna asayi'aat saxaabigaa gabadha soo dhunkaday ee dhibtu ka dhacdayna markii uu la tukaday waxaa la yidhi miyaadna la tukanin haa buu yidhi bes waa kugu filantaa loo tilmaamay wuxuu yidhi ma keligii baa iskale arrintaa may buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bal lijamiici ummatii kulli ummaddaydoo dhan baa iskale
sayi'adaasi in tooba laga dabadgeeyaa waa waxa islaamku kaga soocan yahay baan odhan karnaa diimo badan oo dunida yaalla. Christianity-gu waxayna leeyihiin nebi aadam dembiguu galay ayaa ciise loo deldelay si uu khati'ada uga maydho, innagoo qur-aanka ku hayna walaa taziru waasiratun wisra ukhra. aadam wixii uu galay cid kale looma haysto, adna waxaad gashay cid kale looma haysto, laakiin ilaahay baabkaasi toobaduu inoo furay iyo xasanaadkaasi ee aan dadaallo. Wasalaamu calaykum waraxmat ullah.